إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan u tacsiyeynaynaa guud ahaan falkii waxshinimada lahaa ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay ku dhinteen dad badan kuna dhaawacmeen in ka sii badan khasaare naf iyo maalbana uu soo gaarsiiyey falkaasoo ay fuliyeen manaxayaal cadow guud oo dhibaato ku ah ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan iyo adduunkaba. waxaa dhimashadu ahayd 26 qof dadka dhintay ee aan ka soo qaadnay meeshii hoteelkii wax ka dhaceen dad Soomaali oo jinsiyado wata dawlado kala sida 3 qof oo Kenyaana, 1 qof oo Canadiana, 1 qof oo British watay, 2 Maraykana iyo 3 Tanzaniana. dadkaasi waxay ka mid yihiin 26 qof ee dhimashada. waxaa kale oo dhaawac jiray 56 qof iyaga laftirkooda ay ku jiraan dad jinsiyado kala wata gaar ahaan qaar aan Soomaali asalkooda ahayn oo 2 Shiinays ay ku jiraan oo kalluumaysataan. dadkan waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto, inta dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo, Allah ha caafiyo. dadkana waxaan ka codsanaynaa inay Ilaahay u soo baryaan. tacsidaas kadib Ilaahay baana iskale subxaanahu wa tacaala nasiibkaas. waxaan u mahad celinaynaa Rabbulciza subxaanahu wa tacaala oo isagu ah ka qadaray in la badbaadiyo oo intaasoo nafood meesha laga badbaadiyo oo maanta waqtigaas kooban in lagu soo xadido sababta u ahaa Rabbi subxaanahu wa tacaala. kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka amniga ee Jubbaland oo aan odhan karayo waxay qabteen shaqo aad iyo aad u muhiima iyaga iyo saraakiishoodu, taasoo u saamaxday iyadoo uunan ahayn qarax horey u badnaan jiray oo deegaankan ku badnaa inay haddana muddada ay ku soo afjareen ay sababtay inay Ilaahay dadnimada uu siiyey iyo geesinimadooda iyo khibradooda ay shaqada u leeyihiin inay ku badbaadiyaanoo muddo yar ay ku soo afjaraan iyadoo ay ahaayeen 4 qof waxaa fuliyey falka, 1 mid oo qaraxa watay oo gaariga qaraxa isku qarxiyey, 2 meyd oo la hayo meydnimadooda iyo 1 nin oo dhaawac lagu hayo. 3daas ay ahaayeen nimanka dagaalamaya ee ku jiray. waxaa Ilaahay mahad celin aan kale ugu waxaynayaa iyadoo ay ahayd shalay maalin Jimcaha oo dad aad u tiro badan ay galabta hoteelka oo cusub oo la xiiseynaya ay u joogeen, sida khasaaruhu uu yahay iyo sida ciidanka amnigu ay uga qayb qaateen ay badbaadada intaa leeg ku timid. Ilaahay mahadiisa ka sukow inay ciidankuna aad ugu mahadsan yihiin, dadkuna aan is leeyahay wax badan bay ka qayb qaateen. waxaa kaloo u mahad celinayaa cid kasta oo nooga soo tacsiyeysay oo arrintaas yadaa nagala qayb qaadatay, murugadaana nagala qayb qaadatay. intaa markaan ka baxo waxaan rabaa inaan diro fariin amni ah. reer Kismaayo way ku cusub yihiin falalka sidan oo kale ah. waxaan rabaa kow inay ciidamadu sameeyaan foojignaan dheeraada oo ay aada uga digtoonaadaan falalka argagixisonimo ee mar walba ay isku dayayaan inay sameeyaan iyadoo weliba ay ka faa'iidaysanayaan xilligan doorashooyinka iyo siyaasadda lagu jiro. waxaan rabaa inay digtooni badan la qaato, hay-adaha amnigu ay shaqadooda labanlaabaan. shacabkana waxaan farayaa 2 xaalo. qodobka koowaad oo ah inay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay kala shaqeeyaan sidii horeba ugala shaqeynayeen xogta iyo marba wixii ay helaan ee dareenkooda. qodobka labaadna inay tahay inay ka fogaadaan meelaha ay wax ka dhacayaan. hadday wax dhacaan meeshay wax ka dhacaan inaan lagu soo didin oo sida shalay dhacday oo kale inay ciidamada ku cuslaato
shacabka laftiisa kuwa bannaan ka imanaya inay badbaadiyaan oo ka badbaadiyaan sababtoo qof waliba meeshii oo dagaal ka socda oo qarax ka dhacay buu wuxuu rabaa intuu aado inuu isagu bal idaada ka soo waran maxaa la keenay iyo maxsee waxu jiraan shacabka marka waxaan rabaa inaan uga digo inaynan ku kadsoomin meelaha wax ka dhaceen inay had iyo jeer intay ku soo didaan ayna meesha aadin ee ay ku ekaadaan goobahooda oo warka ay ka sugaan meelaha cidda ay khusayso waxaa kaloo rabaa inaan u sheego cadowgaani sidaan hore u sheegay ma aha cadow soomaali cadow u ah jubbaland col u ah dadka waa cadow caalami ah oo u baahan in la iska kaalmaysto wax ka qabashadiisa iyo la dagaalankiisa maanta dadka meesha ku dhintay cid walba isugu jireen ma aha oo cadow aan naxayn taa waxaan leeyahay markaa beesha caalamka ha la iska kaashado oo ha noqdo dagaalkaasi mid inaga wada dhexeeya oo sidaa hadda aan u soconay iyo sidaa hadda loo dagaalamaya si ka bedela insha allah in loo dagaalamo waxaan u baaqayaa shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer Kismaayo dadkaas soo dhaawacmay waxaa aada iyo aada ilaahay waan ugu shukriyayaa xalay isbitaalka oon tegey waxaa nagu filaaday xalay inta badan dhiiggii horey bangiga kaydka u yaallay inay dadku ka qayb qaataan dadkaas dhiigga ay u baahan yihiin oo shacabku ay tagaan iyo mas-uuliyiintuba bangiga dhiigga ku yaalla isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo si ay dadkaas ugu huraan oo dhiigga laga qaadaay waa waxa qofku wuxuu bixiyo ugu fiican sababtoo xalay haddii dhiigga qaarkood la waayi lahaa way dadkaas la badbaadiya faraha badan mayna badbaadeen markaa shacabka iyo mas-uuliyiinta waxaan farayaa inay tagaan bangiga dhiigga isbitaalka oo halkaa ay u suurto gashay inay dhiiggooda huraan haddii ilaahay idhaah ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo beesha caalamkana waxaan ugu baaqayaa dadkaas in gurmad lala soo gaadho wax alaali wixii loo qaban karaan in loo qabto dad dalleeya kuwa agooma ka tegay reero baabaayeeto waxaan rabaa tacsidii inaan si gaar oo xuso aan dib ugu noqdo waxaa ku jiray laba nin oo qof oo mas-uuliyiin aha mid wuxuu ahaa nin xildhibaan hore ahaa madaashuuriya haddana musharax u ahaa madaxtinimada jubbaland ninka kalena wuxuu ahaa nin musharax fadida yidhaahdo hore ganacsiga ahaa dowladgoboleedka jubbaland iyo ficlan xaaskiisii oo la dhimatay hodan ahay gabadh ay si gaara noo taabanayso ummadda soomaaliyeed ay u taabanayso gabadhaas geerada ay la soo noqotay wadaniyadda ku jirta dareenkeedu siduu ahaa iyo sida ay u cabiraysay ilaa xad ilmaheedii xataa intay la soo noqotay ay ku lahayd anigiiba af soomaaligii ka tegay haddaan anigu kasii tahay ilmahaygu say noqonayaan gabadhaas tacsiye gaaran iyadana u fidinaya waxaan leeyahay qoyskaas ilaahay idinka dhigo kuwii fardowso oo isugu geyn lahaa ilaahay idinka dhigo kuwo maqaamkooda oo meel fiican geysiin lahaa iyagiyo inta kaleba marka ummadda soomaaliyeed ee beesha caalamka waxaan faraynaa baaqa ugu soo jeedinaynaa inay dadkaas la gaaraan waxay la soo gaari karaan waxaan rajaynayaa falkaani waa mid nagu cusub hay-adaha amniguna waxaan soo saari doonaa ka jubbaland ahaan bayaan oo aan kaga hadlayno falkan dhacay siduu u dhacay meelaha wuxuu sababsanayo asbaabaha keenay iyo wax badan oo iftiimin doona haddii ilaahay waxaan rabaa inaan bayaankaas ku soo caddayno si dhaqsaan aan u soo saarno xaaladaha jira iyo arrintaani see u dhacday iyo waxa keenay iyadoo lagu yaqaanay magaalada Kismaayo iyo jubbaland guud ahaanba amni oo uu jiray amni fiican iyo istiqraar ka jiray dadkana ay wax cusub ku tahay arrintan oo kale maxaa sababay yaa ugu ku lahaa xaggee buu ka yimid insha allahu ma rabo maanta inaan ku daro laakiin waan ka soo saari doonaa qoraal iyo bayaan cad baan soo saari doonaa kaasaan idinla wadaagi doonaa mar labaad iyo mar saddexaad meydka aanaasan dhaawacyada waxaan rajeynaynaa inaan qaar maxamed u diro wara nairobi u diro wixii isbitaalka Kismaayo xalay aad baxaan ugu mahadcelinayaa mar labaad dhakhaatiirtii ka howlgalaysay isbitaalka guud ee Kismaayo iyo wasiirada meesha caafimaadka oo xalay oo dhan sidii kusoo jeeday waxaan rajeynayaa insha allahu aan meydadkeennana aansano
ومضى صومالينا كل عليه سمر يدان الله يكسي أنا ندعو له والسلام عليكم أنا ندعو واحد إلي وعلى وجود لك أبيانا وعلى لما يقالوا على سبيل علينا فأهلين الدنو ما إلهينا أن نصعب سنة على وقانا قالوا قسوا ويتسنة تذكرنا أنا أصنع أنا ندعو عينه أنا سمح حريصنا